Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhegaystayaal iyo daawadayaal ku soo dhowaada mar kale iyo casharkeenii Foundation Chemistry 1 chapterkiisii labaad casharkii saddexaad. Fadlan dhagaystay haddii aad ku cusub tahay channelkan kororso aqoon subscribe garay si aad u hesho xogta iyo macluumaadka la soo geliyo durbadiiba oo aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka faa'iideysta. Waxaynu weli ku guda jirnaa aragtidii socodka ee maatarka. Waxaynu soo gaarnay qaybtii ugu dambeysay oo ahayd the gaseous state, xaaladda gaaska uu yeelanayo. haddii barafuun oo waxa weeyaan la buufiyo ama dhalo barafuun ku jira ay aad buufido ama dhalo waxa weeyaan ay ku jiraan waxyaabaha guryaha lagu buufiyo sida carfisooyinka iyo wixii la mid ah, qaybta gadaal ee qolka haddaad ku buufido waxaad arkaysaa caraftii in ay si dhaqso ay u soo gaarayso meel kasta oo ka mid ah qolka iyo guriga dhexdiisaba. Arrintan waxay ku caddaynaysaa in qaybaha yaryarka ee gaaska uu ka samaysan yahay ay awood u leeyihiin in ay meel ayaga ka fog ay gaari karaan, ay si fududna ku tegi karaan. Haddaba sidaa daraaddeed waxaa la yidhaahdaa walxaha gaasku uu ka samaysan yahay waxay leeyihiin the greatest kinetic energy, tamar socod oo midda ugu weyn ay leeyihiin. Markaynu soo koobno marka gaaska xaaladihiisu waxaynu ku soo koobaynaa qaybtan. In gaseous state, the particles are free to move anywhere within the container. Xaaladda gaaska ama maatarka xaaladiisii gaaska ah, walxuhu waxay awood u leeyihiin in ay si xor ah ugu dhaqdhaqaaqaan meel kasta oo containerka ka mid ah ama weelka ay ku jiraan ah. The particles move much faster in gases than liquids. Walxahan gaasiska ah aad iyo aad ay uga dhaqso badan yihiin xagga socodka marka loo eego dareerayaasha. The distance between the particles in gaseous state is many times greater than that between particles in the solids and liquid states. Horaan soo sheegnay tan adkaha iyo tan dareeraha waxaa aad iyo aad u weyn oo waxa weeyaan fogaanshaha midda oo adkaha ayaa aad u weyn. Spaceka ama fogaanshaha dhexdoodii gaasasku aaday u ballaaran tahay oo tan weel ama glass oo maran oo hawo ka buuxdo oo waxa weeyaan waxyaabo kale lagu shubi karo. Taa waxay caddaynaysaa spacekiisu inuu aad u ballaaran yahay. The particles in gaseous state collide with each other and with the walls of the container, thus exerting pressure. Walxaha gaasku ka samaysan yahay dhexdoodii isku dhac bay samaynayaan, collision bay samaynayaan, iyo derbiyada weelka marka ayaga ay ku sugan yihiin ama ay ku jiraan derbiyadoodii waxa weeyaan ay ku samaynayaan collision ama ay ku dhacayaan. Waa markii pressure waxa weeyaan lagu sameeyo. A gas occupies the maximum volume available to it. That is, it always fills the container in which it is placed. Gaasku wuxuu buuxiyaa mugga ugu badan ee uu helo. Matalan weel maran gaas baa ka buuxo. Taas weeyaan. Very weak forces of attraction exist between particles. Xoogagoodii waa xoogag aad iyo aad daciif u ah. Xoogagooda ishaysashada tii adkaha way ka khafiifsan tahay, tii dareeraha way ka khafiifsan tahay. Ishaysashadoodii is soo jiidashadoodii aad iyo aad bay weak u tahay. The gas
particles are therefore able to move far away from each other. meel ka fog ay aadi karaan. intaas waxaan uga baxaynaa status of matter and the kinetic theory of matter. ayaan uga baxaynaa. waxaan gelaynaa matter and electricity. matterka iyo danabka, walxaha iyo danabka, ama markii dabka uu taabto ama kuleyl uu taabto, saamaynta uu waxa weeyaan danabku uu ku yeelanayo ayaan ka hadlaynaa. walxaha waxay u kala baxaan labo, conductors iyo non conductors. kuwa waxa weeyaan kul gudbiya iyo kuwa aan kul gudbin, ama kuwa danab gudbiya iyo kuwa aan danabka gudbin. tusaale ahaan birta oo kale waa conductors weeye, intaan bir ahaynna waa non conductors. intaasa lagu soo koobaa. substances which conduct electricity are called conductors. walxaha gudbiya danabka gudbiya, oo markii dab la taabsiiyo ama koronto la dhex mariyo walxaha oo waxa weeyaan kululaanayaan ama wax gudbinayaan sida biraha iyo wixii la mid ah, waxaa lagu magacaabaa conductors ayaa lagu magacaabaa. while those which don't are called non-conductors. halka kuwa aan danabka gudbinin waxa weeyaan waxaa lagu magacaabaa magudbiyaal ayaa la yidhaahdaa, non-conductors aa lagu magacaabaa. taas waa iska caddahay, qof walba ayaa garanayo. waa biraha oo dhan, masaamiirta, irbadaha, jiingadaha, waxaasoo dhan waxa weeyaan conductors weeye. The bulb will light only if the material is a conductor of electric current. tijaaba la sameeyey, tijaabada gabagabadeedii waxay tahay baa la yidhi, the bulb will light only, guluubku wuxuu shidmaa ama uu iftiimaa keliya if the material is a conductor of electric current, haddii walaxdu ay tahay gudbiye qulqul danab haddii ay tahay. maalan guluub ahaana loo soo gataa oo guluub ayuu taagnaanaa, laakiin ma ifayo, sidiisa uma ifaaso, dab ma wato, iftiin ma wato. laakiin markii lagu xiro waxyaabo wax gudbiya oo qulqulkii danabka lagu xiro, baterigii lagu xiro, fiiladii lagu xiro, guluubkii waxa weeyaan la isku xiro, intaas waxa weeyaan sidii sax ahna loo xiro, waxaan wuu ifayaa. marka awal ma ifi jirin, marka hadda muxuu ifay? waxyaabo electric current oo qulqul danab ayaa waxaan la dhex mariyay. in general, metals are good conductors of electric current. haddaynu warka soo koobno, si guud ahaan haddaynu u sheegno, birtu waxa weeyaan waa gudbiyaal wanaagsan oo qulqulka danabka gudbiya. while non-metals are either poor conductors or non-conductors. kuwa aan birta ahayn laba shay uun bay noqon karaan, mid uun bay noqon karaan. either maxay noqon karaan? poor conductors, waxyaabo gudbintooda liidato ay noqon karaan, waa gudbinayaan laakiin waa liitaan. ama waxayba noqon karaan non-conductors, kuwa aan waxba gudbin. graphite is the only non-metal that is a good conductor of electric current. graphite waxa la yidhaahdo waa nooc ka mid ah kaarboonka, wejiyada kaarboonka uu leeyahay ama allotropiska uu leeyahay carbon. waa saddex ay ahaayeen, waa diamond, waa graphite, waa buckyball. marka mid ka mid ah way wejiyadiisii. markaad chemistryga aad hore usii gasho, gaar ahaan form 4 ayaa lagu qaataa. graphite baa la yidhaahdaa. waa birta keliya ee waxa weeyaan gudbiye wanaagsan ah oo danabka gudbida weeye. cafwan, waa waxa aan birta ahayn, waa non metal, waa bir ma aha, haddana waxay gudbidaa electric current, qulqulkay gudbidaa. graphite marka waxa weeyaan waa macdan weeye oo madow oo aad u jilicsan, oo waxa weeyaan noocyada kaarboonka uu yeelanayo wejiyada kaarboonkana ka mid ah. waa la isticmaalaa qalimaanta, waxa weeyaa lagu sameeyaa qalin qoriga oo kale ama qalin malaayga, waxay Soomaalidu dhahaan. qadda ku jirtaay waa graphite weeye.
waxaa kaloo loo isticmaalaa mashiinadaha ama qalabyada oo korontada ku shaqeeyo ama qalabyada birta ah ayaa waxa weeyaan lagu garaaseeyaa oo lagu saliideeyaa. nuclear reactionskan waa loo isticmaalaa. halkan waxaan ka gelaynaa haddana waxa la yiraahdo electrolyte iyo non electrolyte. walxaha waxay u kala baxayaan electrolyte iyo non electrolyte, kuwa danabooba iyo kuwa aan danaboobin. Those that allow it current to pass through them are called electrolyte. walxaha kuwa ogolaada qulqulka in uu waxa weeyaan uu gudbo dhexdooda, qulqulka danabka, waxaa la yiraahdaa electrolyte la yiraahdaa. waxyaabo oo danabooba ayaa la yiraahdaa. waxyaabahaas inta badan waxay u badan yihiin dareerayaasha ay u badan yihiin. waxyaabaha oo dareerayaasha ku dhex jira sida cells oo kale. cell waxaa la lahaa biology marka la joogo waa unug, laakiin chemistry marka la joogo waa bacteria way halka xaba ah. bacteria yaryarka ah halka xabo ayaa la yiraahdaa cell. bacterial badan marka la isku xiro waxaa la yiraahdaa bacteria laha chemistry marka la joogo science-ka. cell wuxuu yaqaanaa hal xabo bacteria waayo oo qolof ah meel taalo. laakiin laba bacteria ama saddex bacteria marka la isku daro la isku xiriiriyo oo dab badan ay bixinayaan waxaa la isku dhahaa bacteria laha. hal xabo markay tahayna cell la yiraahdaa. sidaa daraadeed marka waxa weeyaan bacteriyaasha kuwa baabuurta ha noqdaan oo bacteriga ah ama kuwa cellska ha noqdaan oo bacteriyaasha oo tooshashka loo isticmaalo ha noqdaan, dhammaantood waxa weeyaan waa electrolyte weeye. waa kuwa danabka gudbiya ama waa kuwa danabooba weeye. Those that don't allow current to pass through them, kuwa aan ogolaanaynin qulqulka danabka in uu waxa weeyaan dhex maro, through them are non electrolyte la yiraahdaa. non electrolytes waa kuwa aan danaboobin baa la yiraahdaa iyaguna. waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo waxa weeyaan chapterkii labaad. waxaan kusoo gabagabeynaynaa waxa la yiraahdo melting point iyo boiling point. barta ay wax ku dhalaalaan iyo barta ay wax ku karkaraan. shay walba oo matter ah markuu state uu joogo xaalad aynu soo marnay, xaalad kale ayuu u gudbaa. hadduu adka ahaa liquid ayaa loo bedeli karaa, hadduu liquid ahaa dareera waxaa loo bedeli karaa gas. marka hawsha la qabanayo ayaa magac la siinayaa. shay barta uu ku dhalaalo waxaa la yiraahdaa melting point. shay barta uu ku karkaro uu hawo ku noqdana waxaa la yiraahdaa boiling point. marka labada in la fahmo weyn. shay adka ahaa markuu dareero isu bedelayo uu dhalaalayo waxaa la yiraahdaa awoodda meesha lagu gaarsiinayo ayaa la yiraahdaa melting point. shay dareero ahaana markii hawo laga dhigayo asagana waxaa la boiling point. waa barta ay wax ku karkaraan weeye. The temperature at which substance changes state from solid state to liquid state is known as its melting point ayaa la yiraahdaa. heer kulka walaxi ay bedeli karto. heer kulka uu bedeli karo walax xaaladeedii ka bedeli karaa. tusaale walax adka ahayd ayaa loo bedelayaa dareere. heer kulkaas la isticmaalayo is known as ayaa loo yaqaanaa melting point. waa barta ay wax ku dhalaalaan. The temperature at which a substance changes state from liquid state to gaseous state is known as its boiling point. heer kulka la isticmaalayo markii walax dareere ah loo bedelayo hawo ama walax hoore ah loo bedelayo neef ayaa loo yaqaanaa boiling point. waa barta ay wax ku karkaraan. halkaas baynu kusoo gabagabeynaynaa darsigeenii. dhegeystayaal daawadayaal waxaan filayaa in aad fahanteen. fadlan subscribe garay channelkeenii Kororso Aqoon si aad ugu xirnaato oo gambeelka furo si ay kugu soo dhacaan wax alla wixii cusub la soo geliyo. page-keena follow garay oo like-ta inoogu dadaal hay naga bakhiilin si aan hore u soconno. dhiirigelintaadu muhiim bay inoo tahay. Thank you very much. walaalkiina Nuur Cabdullaahi Abubakar Alxadrami. sidaas iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.